laga keenay ood weyn meel beer ah oo reer miyiga waa 3 nin waxay ku dhasheen xanuunkan imika haya halkaas ka soo qaaday miduu suuxaan nimanka suuxdimo leey saacad buu dhaca labada kalena wax ficila male waxisiina ku oran maayaan wax ii keenna ku oran maayaan kula hadli maayaan ishii ka eegay waxa weeye niman guri cidla iska joogay dhibaatadana ku qabsatay cidoo arxantay iyo cid wax u keentay aan lahayn maca walaalhoodii hooyadu laba yar oo ugu yaryarno iyo dhibaatada way ku wada dhacday qaarna way u dhintay marka anaa sidii dan soo mooday halkan aad ku yarhayn karto ama caafimaad ku eegi karto ama culimada ku eegi karto dabad sidaas aan soo qaaday nimanka xaaladooda sidaa weeya halkan imika ay fadhiyaan gurigan ma gelayaan biyahan taagay kama cabiyaan soo ma qaadan cuntada hadii halka loo dhigay ilaa laag dhiga ma qaadanaya marada ilaa loo xidho ma xidhanaya saxarada hadii doona halka fadhiyaan bay ku sameynaya kaadida halkaas ku sameynaya diwaan niman dhibaatadaas ku dhacday xaq Allana ka timi sida awadeed baan halkan u keenay ya dhaqdhaqaaqa nimankaan wadnana aan danun moodnaan isni bal inay wax la iska bedesho ama wax la ku sheego xaaladdan u keenay waa sida waxba anagu xanuun kama bedel karo waxna dee kuma sameyn karin ehelku ma dan la soo mood dadka ehelka ayuumaan soo balin caawiyaan dan la soo mood halka dhibta ku haysata balay raashiniyo wax uga bedelaan ama sadaqad xumo maqsino hoy roobkiyo bacad ka galaan in u sameyn karaa laakiin ay dhibaato ka qaadeen mid waan ogi way ku dhacday way ku dhashay xaaladooda nimankan waa caynka waxa weeye anigu aabahood wiiga weyna dhalashay aan isku xigin walaalaan hayna aabahood kuwii kalena gurigana halkan ku aasay aabahood soo xanuunkan xanuuno ka mid oo kansal ku dhacay halkan ku deed ku go'ay halkan ku aas kuwana adeer baan oo abahood baan walaalahay xaaladoodu waa aynka wax dhibaatadoodana oo aan ka qaban karaa ma jiro marka xagad geyseen waxaan u geynay gaboose caafid waxba kama qaban karo buu leeyahay meel ay ma diri karo meel kale baan geyn marka meel kale aan geyn ma jirto كور حالات ده ظروفته يكونوا ليه ظروفته اهلكود dadkood ظروفته اهلكود dadkood wax halka waxaysto u yaala ma jiro halkii degan wax ehelkooda uu yaala oo ka yaala ma jiro magaca guud waxaan ahayn ee guud ee dadkood dad badan ka sameeyay iyaguna riyo yar bay haysteen iyo beer yaro riyo daaqaan oo abaaraha dadka aad guurun foodhelo waxyaamaan u guuraan dhulka duulka helay iyaga halkaas laga taga bartaasay fadhiya waa loogu soo noqdaa markii jiilaal bilaabmo iyagoo halkii fadhiya marka xaaladooda waa niman ilaahay uu sugayo allu bay sugayaan inay ku dhintaan oo waqtigoodu ku gaaro inay ku darxamoodaan oo darxamo ku noqdo الوزير قلت بس بالنور حال أدور كودان حال غير نور أنا قوان الحمد لله سنتقد أنا إسكيبيت كذا وزارة عافيمات كان قريبت ولي بس كاتري قال كشقية أنا قلنا دقالة وما هيو شغالة دولد لحب قلبه قات بقول دولار كيا بقول دولار كيا وسديتن شان يتضباطن دولار كوبية طبعاً عروضها هيستا يهودي هذا أنا بالواقع نسكجنا والله أنت أصوبة لهاي نوبركية كون يقول تسار كينا أنت أصوبة نارنية يا
intay iminka joogaan ee baarista ku jiraan intaa aanu cunayno iyo qof ehelahoo iminka suuqa jooga maahe waxaa jirta inan aan adeer u ahay oo jirta Maraykanka taasaa 100 soo tuurta maalin weyd 100 keenta 100kiiba masaarifsadaan iminka marka wallaahi dhibaato dee wax uga maqan ma jiro iyaga wax dhibaato ka maqan subaxii markay toosaan haddii shaas iyo cabbaan sida kayntaa wareegayaan baa caweyska la yidhaha ma soo hoydeen biyo ma leh waxay cunaan ma leh duurkaasunbay wareegaya ka gubtay digsi laleeya waxaa laygu koriyo hooyada habeenkii usoo hotay ka tagtay jilmala wuxuu dibadda u yar baxday ayuu soo gaajoonayeysay waxay meeshaas ku samaynaysee markuu daboolkii sidaa uga soo qaaday ayuu ku sooxa waxay u timi isagoo biyihii iyo waxayna qubteenoo dhinaciisii iyo isku dhegeen iyo ciiddi oo maqan isla maqan wixii bay isla soo dhaceen meel looma soo qaadinoo noloma sheeginoo lama soo qaadinoo lama daweyn ciiddii unbaa lagu daweeyey halka oo sidaada dibadiisa arkayso gaariga tagaana $100 baa lagu raac boqolkaa waxa laga yaabaa inaan anigu heli karin kuwaasina heli karinba haday soo qaadaan dee dhibaatada adduunku wax ka maqan nimankaa ma jiraan magacaaga saddexaad xasan cabdi faarax iyagana ilmaha yaa la yidhaha waxaa la yidhaha ilmaan maxamed cabdi faarax telefoon lambarkaaga waxa weeyaan 416 ku hel lambarkaaga waxa weeye 416 hagaad deganta waxaan deganahay halkan xaafadan oo jarata laydha hada jarataa laydha xaafadda ayay halkeebay siita yaa xaafadda magacyada la yaqaana sheeg waxa waa ina moogi waa magaaladee waa Hargeysa waa qaybta ina moogi waa waxa la yiraahdaa qaybtan Sheekh Shukri inta yada Sheekh Shukri baa la yiraahdaa assalaamu alaykum alaykum asalaam